بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان ولا لها شرفت بدن كم ذوبي جروب كاستغفارتا إيو سليق النبي صلى الله عليه وسلم ولا ليال هدي أينو سفي عن أصور دوحني أو سوق عدني قصدي إيو برنامجكي كورماي سيدا أينو أخلاق دينا أتوسين كرنا أينو أخلاق دينا يعني أو قدين كرنا أخلاق دي رسولك صلى الله عليه وسلم هذا وحنا هلكن كسوق قد بنيا tobanka qodob ee ugu horeeya aan rabno inaan fulino ama ku dhaqano labada maalmood ee inagu soo foolay maalmaha Arbacada iyo Khamiista iyo insha Allah waxaan ku dari doonaa barnaamijka Jimcaha oo aanu sii shaacin doono insha Allah walaalayaal qof kastaba waxa laga doonayaa koow shuruudan in horta laga helo ugu horeyn waxaad sameyn doontaa laga bilaabo daqiiqadaas aad barnaamijka ku soo biirtay ee aad ku aansatay inaad naftaada isbedel ku sameyso waxa laga codsanayaa in Allahumma salli ala Muhammad aad joojiso waxa loo yaqaan xanta oo aanad cid dambe xamanin oo xanta halka ku joojiso cidii kula timaadana aad raado walaalay inaga daa dambiga qofkaas aad joojiso xaqiraada oo aanad qof bini aadam xaqirin ciduu doona ha noqdo aad joojiso Allahumma salli ala Muhammad cayda walow ha noqoto caydaada caruurtaada caayayso adoo canaan uga jeeda inaad joojiso sidoo kale isku dirka waxyaabahaas oo dhan inaad joojiso iyo dabagalka ceebaha bini aadamka oo ay ka mid tahay tusaale ahaan indhahaaga inaad ka laabato xataa oo aanad muxaramaadka ku eegin markhaati aanad ka noqon dambiyada dhacaya tusaale ahaan waxa ka mid ah dambiyada tuugada ah dambiyada dilka ah dambiyada khiyaamada ah waxa laga yaabaa inaad isweydiisaan dambiyadaasi halkee ayay ka dhacaan waxa laga yaabaa inaad fiirsataan musalsalada oo si joogto ah u fiirsataan oo cawrada yani dadka jilayaasha aad aragtaan oo indhiina ay ku dhacaan saameyn bi qalbigaaga ku leedahay jooji waxa daawataan musalsalkii isaga oo khiyaamo nin gabadhiisa khiyaamaya ama gabadh yani khiyaamaysa ninkeeda ama qoysas khiyaamad markhaati ka tahay waxaad goobjoog ka tahay Google Drive la sameeynaya tusaale mararka qaarkood oo daawanaysa markhaati ka tahay tuuganimaad markhaati ka tahay waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin inaad ka fikirto walaalood aad uga fikirto saameyn bi ku leeyihiin qalbigaaga saa awgeed si qalbigaagu nadiif u noqdo jooji wax kasta oo xan ah xaqiraadka dadka cayda ah isku dirka ah dabagalka ceebaha maxaan ku dhahaa bini aadamka iyo Allahumma salli ala Muhammad wixii muharramaad ah oo Allah subhanahu wa ta'ala awsan inoo ogolayn rasuulkuna sallallahu alayhi wasallam inoo gadigay laba wanaaji yani noqo qof wanaajiya dadka oo wanaaga fara xumaantana ka reeba inta aad karto waliba adigoo aan ku qaylinaynin isluub wanaagsan waxaad ogtihiin nabiyullaahi Muusa alayhi salaam Allah markuu u diraayay waxa uu ku lahaa yani waqul lahum qawlan layyinan yani hadal dabacsan ku dheh marka qofka haddaad rabto inaad saxdad wanaag u sheegto ha caayin laakiin si yani anshax wanaagsan oo nidaamsan oo aad ka fikirtay oo fiican ugu sheeg oo xumaanta uga reeb wanaagana u far marka waxa aynu kaga khayr badannahay ummadihii kale ee Allah subhanahu wa ta'ala uu leeyahay kuntum khayru ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ummadihii kale waxaynu kaga khayr badannahay in aynu nahay dad wanaag isfara Allahumma salli ala Muhammad xumaantana iska reeba وتؤمنون بالله أو إلهنا سبحانه وتعالى رمينا قضب كاسنا وحلقة ربنا الطبقة أو نقضاء شقوين كاجا الطبقة سو يوميا كا صدح حريري قرابة حريري قرابة أول حريرين وايو دنبي وين أياكو سوغان أرساقد كوما جرتو بركة ما جرتو وحبضان أيا كاجا هلابيا هدي قرابة هذه عيد السكود عسان إذن إلهي درتي كعفي أديكو مركز قرابة هذا حريري اسكود دا إنها تسميستو liiska qaraabadaada kuwa guud iyo kuwa dhow oo aad telefoonadooda iyo Allahumma salli ala Muhammad nambaradooda iyo magacyadooda aad saas ugu liis kareysato qoys iyo qof sidii ku suurtagal ah iskuna day markaas maalintii in laba qof oo qaraabadaada kamida aad xiriiriso arintaas waxaad ka arki doontaa farxad waxaad ka arki doontaa wanaag adigoo Ilaahay dartii uga jeeda qaraabadaadana sidaas aad ku wacdo oo aad ku xiriiriso oo telefoonka aad kala hadasho oo nambaradooda aad garaacdo ama aad wacdo sidii ku suurtagal aad ula xiriidho cidii ku dhow aad booqato markaasna cidii qaraabada kamida oo shaydaanku wax idin kala dhax dhigay arintaas darbigaasna aad jabiso biidnillaahi ta'ala
qodobka kale waxa weeyaan walaalayaal laga bilaabo maanta waa in laga helaa birrul waalidayn haddii labadaadii waalid ay kuu nool yihiin inaad u samafasho haddii mid kuu nool yahay inaad ka faa'iidaysato haddii ay dhinteenna waxaad ugu samafali kartaa inaad u ducayso in aad asxaabtii iyo dadkay jeclaayeen iyo ciddii iyo aad xidhiidhiso taasna waxay ka mid tahay birrul waalidaynka shaqadaasna waa aad bay muhiim u tahay waa inaad dabaqdaa qodobadan okay sidoo kale sadaqa la bax intii kuu suurtagal ah wixii aad haysatay tamartaa haddaad dhaqaalo weydo wax kala weydo adkaartii ha ilaawin waayo istighfaar kasta iyo alxamdulillah kastoo tiraahdo sadaqa ay yihiin soomka sunnada ah isna waa muhiim in maxaan ku dhahdaa aynu isku baraarujino soomka sunnada maalmaha la soomo ee lasoo dhigo gurubyada waa taqaanaan waxaa kaloo dheeraad ah soomka la soomo ayaamul biidka maalmaha 13 iyo 14 iyo 15 bil kasta waa maalmaha dayaxu cad yahay maalmahaasi si gaareen mar uga hadli doonaaye soomkaasi waxa ku jira caafimaad aan la qiyaasi karin oo Allah subhanahu wa ta'ala oo kaliya uu qiyaasi karo xigmad baanu nabigu calayhi salaatu wasalaam inoogu sheegay soomkaasi qofka sooma ayaamul biidku ma gaboobo ma duqoobo unugada jidhkiisa oo dhan dibbiis ribeer u qaataan sunta jidhka ku jirto dhan meesha ayay ka baxdaa allahumma salli calaa maxamed saddexdaa maalmood waxaa la ogyahay inay yihiin ayaamaha ugu dhibta badan ee dadka ay ka suurto gasho in wax dilaan inay sinaystaan in macsi ay galaan sidaas awgeedba soomka ayaamul biidka qofka sooma waxa uu dareemayaa wanaag badan oo uu leeyahay qodobka ku xiga waxa weeyaan salaadaha oo waqtiyadooda la ilaaliyo iyo sunayaasha salaadaha la socda oo la ilaaliyo ayaa iyaguna aad muhiim u ah ragana waxa muhiim u sii ah oo yani ah inay aad xoog u saaraan inay 5 salaadoodba ay jamaca ku tukadaan ilaahay idamkiis qodobka 8aad ee kale ee muhiimka ah wuxuu yahay inaad akhrido suuratu yaasiin maalin kasta ugu yaraan 2 jeer oo hal mar oo habeenkii ah iyo hal mar oo maalintii ah suuratu yaasiin iyo qiimaha ay leedahay insha Allah muuqaal gaar ah ayaan kaga hadli doonaa faa'iido badan bay leedahay marka insha Allah suuratu yaasiin aad bay muhiim u tahay haddii aad taqaano haddii kale quraan inta ilaahay ku baray kala akhriso joogtee adkaaru sabaxi wa masaa adkaarta subaxdii iyo galabtii la akhristo joogtee laga bilaabo maanta joogtee biidhnillaahi tacaala qur'aankaaga raatibka kuwa ee joogtada kugu socda maalin walba intii ilaahay ku karasiyo akhriso hadda suuratul baqara ku socotay sidaadii u wado haddii aad maxaan ku dhahaa intii quraanka ka taqaana maalin walba kitaabkeeda wax ka akhridaana aad iyo aad bay raax naftaada iyo ruuxdaada iyo iimaankaaga ay u quweynaysaa kitaabkana yaan laga haajirin markaas inta aad samayso waxa aad kadib joogteynaysaa wardigaaga yoomiga markaad yacni amaashi maalinlaha markaad samayso kadib eed askar sabax akhrisato quraankaaga akhrisato ee salaadaha tukato inta badan maalintii waxaad siinaysaa wardiga aad markaa dooratay hadaad istighfaarta dooratay maalin oo dhan istighfaarta ayaad wadaysaa haddii saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam aad dooratay saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam baad wadaysaa allahumma salli calaa maxamed waxa aynu isku dayi doonaa markaas saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo istighfaarta in inagu hadda aynu bilowno aynu ku tababarano waxaana aynu labadan maalmood ee arbacada iyo khamiista aynu samayn doonaa oo laynaga rabaa 1 milyan oo istighfaar inaynu ku bilowno shaqadeena oo aynu samayno habeenka jimcuhu soo galayna waxa insha Allah taala aynu isna samayn doonaa 1 milyan oo saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam kadib sabtida marka la gaaro groupka istighfaartu xagga istighfaarta ayay marka barnaamij kale ka samayn doonaa iyo talooyin kale la iska rabo hadii Ilaahay idmo waayahay wardigan waxaynu ka bilaabi doonaa markaas ala qof inta groupka ku jirto waxa laga rabaa maalintii 2500 5000 oo waxa laga rabaa istighfaar ah labadan maalmood si ay 1 milyan qayb uga noqoto kadib insha Allah taala waxaynu bilaabi doonaa inaynu u duceyno walaalaheena muslimiinta ah inaga oo kala maqan hadaba walaalayaal maadaama ducada la soo codsado intii aan ogeyn ay u kala baxayeen 4 qaybood waxaan rabaa ducada walaalaha loo duceynayo inaga kala maqan in aynu allahumma salli ala maxamed cidii soo codsanaysa ducada aynu qaabkan u kala saarno walaalaha soo codsanaya in loo duceeyo oo dad ka xanuunsanaya ama iyagu laftirkooda xanuunsanaya oo raba in loo duceeyo oo walaalahaas ilaahay subhanahu wa ta'ala xusaaye ilaahay dartii walaaloobay ay u duceeyaan oo allahumma salli ala maxamed ducooyinkii hore aynu duceeyno dad badan buu ilaahay ku caafiyay maadaama duceynago yani ala dahr qayb lagu duceeyay dadkaas waxaad ku soo hagaajinaysaa fariintiina walaasheen Nasra Odawa oo kamid ah adminka numberkeedana waxa lagu soo qori doonaa
groupka. Marka qof kasta oo qof xanuunsan ama isaguba xanuunsan oo caafimaad ilaahay subxaanahu wa tacaala in loo baryo raba oo walaalahaas raba in khayrkaas marka ay ku guda jiraan inay ducadaasi ay u duceeyaan, ducooyinkaas waxaa lagu soo hagaajin doonaa qaybtaas codsigaasi nasra odawaaba lagu soo hagaajin doonaa si nasri markaas ay noo sheegto intaas qofba waxay soo codsadeen in dadka xanuunsanaya lagu duceeyo. Sidoo kale dadka raba in loogu duceeyo arrimo guur oo ay rabaan ama shaqo doonka ah waxay iyaguna kusoo hagaajin doonaan hana daahir oo iyaduna ka mid ah adminka groupka. Nambarkeedana waxaa lagu soo qori doonaa groupka insha allahu tacaala. Sidoo kale dadka raba in loogu duceeyo in ilaahay subxaanahu wa tacaala cid qoyska ka mid oo ama dhibaataysan ilaahay usoo hanuuniyo ama barakada qoyska in qoyska iyo barakada caruurta iyo barakada ehelka in allah subxaanahu wa tacaala loo baryo iyo sidoo kale arsaaqad waasica ilaahay in loo baryo ciddii rabta waxay kusoo hagaajin doonaan iyaguna codsigaasi waxay usoo gudbin doonaan walaalkeen kaafi oo isaguna ka mid adminka groupka oo biidni illaahi tacaala allahuma salli calaa maxamed nambarkiisana lagu soo qori doono halkaas. Qofkii intii xaajo kale leh ee arrimo kale ka xayiran yihiin waxay iyaguna kusoo hagaajin doonaan codsigoogaas in loo duceeyo ah walaasheen xaawo cali oo ka mid ah adminka groupka isla markaana nambarkeeda lagu soo qori doono biidni illaahi tacaala groupka lagu soo qori doono. ciddii danaynaysa inay group kusoo biiraan linkiga hoose ayay insha allah kala soo xiriiri doonaan. tan iyo walaalayaal intaan kulanti dambe yeelanayno waxaan kaga tegayaa astawdiicukum allah alladii laa tudiicu wadaa'icahu fi amaan illah wasalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatuh. allahuma salli calaa muxamed wacala aali muxamed kama sallayta calaa ibraahiima wacala aali ibraahiima innaka xamiidun majiid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.